mudane gudoomiye waa mahadsan tahay iyo mudanayaasha dhammaantood marka ugu horeysa waxaan sakingaraynayaa gabdhihii halka ka hadlay ee soo jeediyey in kootadooda la caddeeyo ma aqaan siday isu daboolaysa qof iyo cod iyo kooto laakiin kootada ay codsadeen in la taageero anuu shakhsiyan waa taageerayaa waxaana leeyahay kootadaas gabdhaha ha loo qoro inkastoo senataradu ay sheegtay arrin muhiima marka 4 iyo 30 kala bedelanaynaa taana waa inaad saxiixdeen gabdhaha waa inay saxiixaan intaa marka laga tago mudanayaal maanta arrimaha ina hor yaalla waa muhiim waa salaamaya culimada Soomaaliyeed soo dhawaad illa baan laguma maqlaayo codka u dhaweey adiga qodob iyo farqadan aad sheegaysid mudane gudoomiye ma la maqlaa hadda maxaa khaldan السلام عليكم هذا ما لا يمغلا أنا عندي مغلي وإذا عندنا مغلي ما يسمى واحد كلا نور شيكتان مدن القدومية ما أنت وأمالين تاريخية واحد بدن وضدك الصومالية إذا يسوقيان يالان هلكن وعن ربعين أن تابتو dhowr qodobka koowaad cutubka koowaad qodobkiisa koowaad faqradda saddexaad gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa lagu maxadgudbaan waa sax laakiin mudane gudoomiye jamhuuriyadda federaalka marka la yiraahdo waa in kooban inta federaalka ka baxsan xagee aadaysaa masal lagu xadgudbi karaa ilaan qodobkan wuxuu koobay inta federaalka ah guddiga waxaan rabaa arrintaa inay noodgareeyaan arrinta kale oo aan isleeyahay waa lagama maarmaan aragtidayda qodobka labaad qodobka saddexaad meelo yaryar way ka mid tahay faqradda afraad dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiiri gelinayaa xuquuqda aadanaha meeshaas ka horeysa waxaa ku qoran talinta sharciga meeshaa waxaan dhihi lahaa la geliyo sarreynta sharciga waa toosin ka dambana isaga ku qoran saasa ku qoran ka dambana qaybta ay bedeleen hatta saasa ku qoran ka ay bedeleen hada fiirsidna talinta ku qoran marka sarreynta lagu bedelo qodobka kale oo aan isleeyahay waa laga maarmaan waxa waa qodobka 6aad mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxaan ka hadlaynaa qodobkan uu leeyahay calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida lagu muujiyay qaybta a jadwalka koowaad waa leydi buluug furan oo ay dhexda kaga taal xidig cad oo shangees ah marka meesha aan uga jeedo waxay tahay calanka astaamaha lagu sheegay waa sax laakiin calanka waxaa iskale jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka markuu federaal noqday wadanku waxa weeye waa calankii laakiin haddana qaybna waa la bixinayaa qaybna waa la soo gelinayaa halkaasna waxay u baahan tahay in la caddeeyo qodobka 7aad dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay ka kooban tahay dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mar labaad isla tiiba soo noqonaysa inta aan federaalka ahayn xagee aadaysa qodobka
sideedaad ee ku saabsan jinsiyadda mudane guddoomiye qodobkan meelo badan buu soo maray buuq badan buu soo maray si aadaa loo siyaasadeeyey marka aniga waxaan soo jeedinayaa in asalkiisii lagu celiyo inkastoon su-aal ka qabo nuqulka dastuurka ee ay isticmaaleen guddigan laftirkooda because dastuurku nuqullo badan buu soo maray oo kala duwan nuqulka ay isticmaaleen ee ay sixitaanka ku samaynayaan inuu yahay kii saxda ah iyo in kale laakiin qodobkani wuxuu u qoraa qof kasta oo asalkiisu Soomaali yahay waa Soomaali haddii looga jeedo in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaliya la yiraahdo sida hadda uu qoran yahay waxaa meesha ka baxaya deegaano badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo Soomaaliyeed taasna waxay keenaysaa in dadkii Soomaaliyeed kala qaybsamo deegaano Soomaaliyeedna ay banaanka ka istaagaan sidaas darteed waxaan soo jeedinaynaa in lagu celiyo farqadaasi sidii ahayd loogu celiyo oo la yiraahdo qof kasta oo asalkiisu Soomaali yahay waa Soomaali qodobka sagaalaad oo ah sideedaad waa ka baxay qodobka sideedaada jinsiyadda waa ka baxay sagaalaadan tegey sideedaad waa ka baxay waxaan uga baxay qodobkaas in la geeyo halkaas haddii la yidhaahdo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyadda inta federaalka ee Soomaaliya laga hadlayo inta aan federaalka ku jirin banaanka uga baxayaan haddii dadka qaar ka baqayaan Soomaali badan oo aan federaalka hadda ku jirin oo banaanka joogta oo laga yaabo inay majority-ga ka badan yihiin inta gudaha federaalka ku jirta oo ay ka baqayaan inay codeeyaan dadkaasi waxaan xaqiijinaynaa inay codeynayaan haddii xitaa darbiga Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya laga dhiso inay codeeyaan ayaan xaqiijin doonaa haddii aan la yidhaahdo sidaasi darteed caqabadaas yartaa oo isbaaradaa yartaa oo la isku dayayo waxaan soo jeedin lahayn in laga daayo qodobka mar labaad haddii sidan lagu ansixiyo dastuurkan wuxuu si toos ah banaanka ugu saarayaa Somaliland oo aan hadda u taagan banaanka haddii sida ay tahay lagu ansixiyo maantana si toos ah ayuu loo aqoonsanayaa inay madax bannaan tahay oo aanay ka mid ahayn sidaasi darteed waxaan soo jeedinayaa in laga daayo qodobka sagaalaad ee caasimadda mudane guddoomiye iyo mudanayaal marar badan waxaa la yidhaahdaa caasimadda waxaa loo rarayaa faqraddaas aniga waxaan soo jeedinayaa caasimadda in raritaanka horta meelaha kale loo raraya laga daayo oo go'aan laga gaaro oo la sheego caasimadda iyo sida ay tahay hadda sida ay u qoran tahayna in wax laga bedelo sababtoo waxaa la yidhi magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa Muqdisho aniga waxaan qabaa in la yiraahdo magaalo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliya waa Muqdisho haddii la yiraahdo magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka ah inta aan federaalka ahayn caasimadu ma noqonayso sidaas darteed waa caasimadii qaranka jamhuuriyaddu waa dadka Soomaaliyeed jamhuuriyadda lagu qoro waa mahadsantihiin